السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan dhageystayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena islaamka iyo nolosha. mawduuca aan ku eegi doono toddobaadkan wuxuu noqon doonaa aadaab dahara oo aan ula jeedno xilliga suuliga. waxaana inoo bayaanin doona mawduucana Sheekh Salaad Cantoob Xasan. barnaamijkeena ugu horeyn aan ku soo dhaweeyo Sheekh Salaad Cantoob Xasan. فليتفضل. شكرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه. إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. ترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله إن قد قيدد مسلمين. موضوعنا هدي أي نكبح النفا فاهن موضوع حوكو سابسن يهي طهارة ويقدو وينتهي مواضيع فربضان أي نوغهد لدونا إن شاء الله تعالى. عاو موضوعنا قارهان وحوتابان دونا آداب الاستنجاء، آداب تسوليغا. قفك مركو ضرب قادان أيو أما أستنشون أيو aadaabta looga baahan yahay inuu ilaaliyo iyo waxyaabaha karaahiyada ka ah iyo waxyaabaha mamnuuca ka ah ayaynu ku qaadan doonaa insha Allah taala. qofka muriidul khalaa, yani qofka doonayo inuu suuli galo ee uu najaasadii iska soo mayro, ugu horeyn waxa loo sunneeyaa inuu kobaha gashado oo kobihii uu isticmaalo haddii uusan cudur jirin. waxa kaloo la rabaa inuu madaxa asturto markuu galayo suuliga. kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka wuxuu ahaa idaa dakhala alkhalaa'a, markii uu suulida galayo, labisa xidaa'ahu, kobihiisa ayuu labisan jiray, wuxuu gashan jiray kobihiisa. waqaddaa ra'sahu, madaxiisana wuu dabooli jiray. xadiiskaa waxaa wariyey imaamulbayhaqi, wuxuuna ku wariyey fii baabi taqdiyati alra'si cinda dukhuuli alkhalaa'. yacni qofka musqusha galayo oo suuliga galayo madaxa inuu daboosho baabkii uu uga warramayay mujalladka koowaad safxada 96 ayuu uga warramay. xadiiskaa uu ku soo qaatay imaamulbayhaqi. waxaa kaloo aadaabta istinjaha ka mida qofka yacni suulida galayo inuu iska fogeeyo wax walbo oo magac la ixtiraamo oo la sharfo ay ku qoran yihiin, sida magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo magaca ambiyada iyo malaa'igta. waxaana u daliila xadiiskii Anas bin Maalik uu wariyey radiyallaahu canhu. wuxuu yidhi Anas, kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa dakhala alkhalaa'a, suulida markuu galayo, nasaca khaatamahu, faraatigiisa inuu siibayo. rasuulka sala allahu calayhi wasalam faraatiga ayuu iska bixi jiray. xadiiskaa waa xadiis saxiix ah. abu daawuud ayaa ku warinayo raqamka 19 ayuu ku warinayaa. imaamu tirmidina wuxuu ku wariyey xadiiska raqamka 1746. sidoo kale imaamu nasaa'i xadiiska wuxuu ku warinayaa raqamka 5213. ibnu maajahna wuxuu ku soo saaray 303 safxada. waxaa kaloo ka mid ah aadaabta istinjaha qofka suulida galaya inuu diyaarsado axjaartii uu najaasada isaga mayrin lahaa, uu isaga khafiifin lahaa. inuu dhagaxyadii iyo dhagaxa wixii soo hoos galayo sida xaashidii oo kale iyo inuu qaato ee uu diyaargaroobo. umuna caaisha radiyallaahu canhaa waxaa laga warinayaa caaisha inay tidhi, nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, idaa dahaba axadukum ila alqaa'id, axadkiin markuu aadayo meesha lagu saxaro gudanayo, faliyadhab macahu bi3 axjaarin, horaha u qaato 3 dhagax ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. yastadiibu bihin, 3 dhagax uu isku nadiifinayo,
fa innahaa tujzi'u canhu way kaafinaysaa. saddexdaa dhagax way ku filan tahay, xitaa biyaha way ka kaafinaysaa haddii shuruuddii la helo. abuu daa'uud ayaa xadiiskaa soo saaray baabul istinja markuu ka warramayay raqamka 4 ayuu uga warramay. waxaa kaloo ka mid a aadaabta la ilaalinayo oo qofka markuu assanjoonayo ee suulida uu galayo inuu la yimaado adkaar. ugu horrayn qofka markuu suulida galayo wuxuu hormarinayaa bidixdiisa, wuxuuna ku dhawaaqayaa bismillaah allaahumma innii acuudu bika min alkhubthi waalkhabaa'is, oo macnaheedu ay tahay ilaahay magiciisa ayaan ku galayaa musqusha. ilaahayow waxaan kaa magangelayaa shayddaanka labka ah iyo shayddaanka dhadig. qofka markuu musqusha galayo sidaa ayaa looga baahan yahay inuu bidixdiisa hormariyo adkaarta iyo ducadaana uu la yimaado. markuu soo baxayo ee musqusha uu soo dhammaysto wuxuu soo hormarinayaa midigtiisa, wuxuuna ku dhawaaqayaa adkaarta tani: qufraanaka alxamdu lilaahi aladii adhaba cannii aladaa wa caafaanii. ilaahayow waxaan ku su'aalanayaa dembidhaafkaaga, waxaa mahad iska leh allihii dhibaatada iga baabi'iyey caafimaadna i siiyey. maxaa yeelay qofka haddii lagu celiyo waxyaabaha uu suulida isaga soo bixinayo oo saxaradii iyo kaadidii haddii lagu celiyo caafimaad darra ayaa imaanayso. qofka markii uu soo guto xaajadiisa waa qof caafimaad qabo, marka ilaahay buu uga mahad celinayaa subxaanahu wa tacaala. ducooyinkan waxay ku sugnaadeen markii aynu fiirino ducada markii musqusha la galayo. imaamulbukhaari ayaa soo saaray raqamka 142 ayuu ku warinayaa. baabu maa yaquulu cinda dukhuuli alkhalaa ayuu uga warramay. imaamu muslimna wuxuu ku soo saaray raqamka 375 laakiin min hayri lafdi bismillaah, bismillaahi wuu ka reebay. ducaa'ul khuruujna waxaa soo saaray abuu daa'uud markii dahaarada uu ka warramaya raqamka 30 ayuu ku soo saaray. waxaa kaloo ka mida aadaabta la ilaalinayo oo qofka istinjaha gudanayo ama xaajo gudanayo ama suulida isticmaalayo waxaa looga baahan yahay inuu cuskado lugtiisa bidixda ah. maxaa yeelay qofka waxa ku jira oo gudaha ku jira kaadida iyo saxarada waxaa soo bixi og inuu cuskado bidixda, lugtiisa bidixda inuu cuskado waxay sahlaysaa waxa gudaha ku jira inay soo baxaan. imaamulbayhaqi wuxuu xadiis saxiixa ku warinayaa. xadiiskaana wuxuu ka warinayaa suraaqa bin jacsham. suraaqa wuxuu yidhi: callamanaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka wuxuuna baray idaa dakhala axaduna alkhalaa', midka annaga naga mida markuu musqusha galayo, an yactamida alyusraa, lugta bidixa inuu cuskado, wa yansiba alyumnaa, lugta midigana uu kor u taago. lugta midigama la cuskanayo markii xaajada loo fadhiyo, waxaa la cuskanayaa oo culayska la saarayaa lugta bidixa. rasuulka ayay ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam. xadiiska bayhaqi ayaa soo saaray mujalladka 1 raqamka 96 ayuu uga warramay imaamulbayhaqi. waxaa kaloo ka mida aadaabta la ilaalinayo qofka inuusan dheerayn fadhiga. qofka markuu fadhiyo ee uu xaajo gudanayo, xaajadiisa markay u dhammaato waa inuu fadhigii soo koobo, uusan dheerayn. maxaa yeelay haddii fadhiga la dheereeyo waxaa ka dhalanaya caafimaad darro. waxaa la yidhaahdaa idaalatu alqucuud fii qadaa'i alxaaja tuurisu albaasuur. fadhiga markii lagu dheereeyo xaajo gudashada waxay dhalinaysaa ama dhaxal siinaysaa waxa la yidhaha bawaasiirka. waxa aynu u naqaanno bawaasiirka ayaa ka dhalanaya fadhiga oo dheeraada. waxaa kaloo ka mida aadaabta la ilaalinayo oo qofka inuu ilaaliyo loo baahan yahay markuu suulida gudanayo, inuusan ku hadlin fii athnaa'i qadaa'i alxaaja. markuu xaajo gudanayo inuusan ku dhex hadlin, maxaa yeelay hadalku waa karaahi. qofka markuu ku dhex hadlo asigoo xaajo gudanayo karaahiye bay naqanaysaa. qofka waa inuu hadalka iska ilaaliyo. waxaa kaloo ka mida aadaabta uu ilaalinayo qofka markuu kaadinayo inuusan ku kaadin si istaag ah. kaadida markuu gudanayo haddii uusan cudur jirin waa inuusan ku kaadin taagni. cabdulaahi bin cumar radiallaahu canhu wuxuu aabbihiis ka warinayaa cumar ibni alkhadaab. cumar wuxuu yidhi:
ra'aanii annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayaa i arkay wa ana abuulu qaa'iman anigoo kaadinayo weliba anigoo taagan. wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam anigoo taagan oo kaadshayo ayuu i arkay. fa qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa cumar laa tabul qaa'iman. wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam cumarow adigoo taagan ha kaadinin. sayid cumar wuxuu yidhi famaa bultu qaa'iman bacdu. hadalkaa kadib anigoo taagan ma kaadin buu yidhi sayidinaa cumar ibni alkhadaab radia allaahu canh. xadiiskan waxaa soo saaray imaamu tirmidi raqamka 12 ibnu maajahna wuxuu ku soo saaray 308 safxada 308 ayuu xadiiskan ku wariyey. waxaa kaloo nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam nabiga sala allahu calayhi wasalam asagoo taagan inuu kaadiyey. marka labada xadiis sidee leesu waafajinayaa? xadiiska koowaad ee nabiga uu yidhi calayhi salaatu wasalaam adigoo taagan ha kaadinin waa markii cudur uusan jirin. qofka markuu cudur uu hayo ama meel najaasaa oo fadhiga uu iska ilaalinayo uu ku kaadinayo markaa taagni ayuu ku kaadinayaa maxaa yeelay cudur ayuu haystaa. xudayfa waxaa laga wariyey allah ka raadi naqdee wuxuu yidhi ata annabiyu sala allahu calayhi wasalam sibaadata qawmin fabaala qaa'iman humma dacaa bimaa'in faji'tuhu bimaa'in fatawada'a akhrajahu albukhaari. wuxuu leeyahay xudayfa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yimid qoom qashin qubkooda ayuu yimid meesha qashinka ay isaga dheereeyaan. rasuulka calayhi salaatu wasalaam asagoo taagan ayuu kaadiyey isagoo iska ilaalinayo nijaasada meeshaa ku jirto inay ku soo faniinto. rasuulka wuxuu u yeertay calayhi salaatu wasalaam in biyo loo keeno. xudayfana wuxuu yidhi biyo ayaa nabiga u keenay wuuna weyse qaatay. xadiiskaa marka waxaa soo saaray imaamu albukhaari baabulbawli qaa'iman wa qaacidan yacnii qofka asigoo taagan inuu kaadinayo iyo asagoo fadhiyo inuu kaadinayo. yacni markuu taagni ku kaadinayo waa markuu cudur haysto, laakiin qofka hadduusan cudur haysan waxaa loo baahan yahay inuusan taagni ku kaadin. mowduucayna ayaynu kusii faahfaahi doonnaa insha allahu tacaalaa waxyaabaha inooga haray aadaab qadaa'i alxaaja, aadaab alistinjaa, yacnii haddii ay halahayd karaahidii iyo waxyaabaha muxaramaadka oo xaaraamta ka ah. intaa ayaan ku koobayaa faahfaahintii koobneed oo aan ka bixinaynay mowduuca. wabillaahi towfiiq. aad buu u mahadsan yahay sheekh salaad cantoob xasan ajir iyo xasanaad allah ka siiya. haatanna waxaan u gudagelaynaa barnaamijkeennii fariimahaana soo gaaraya. dhegeystaana wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacigu waa suleymaan oo jooga xaafadda carafaad ee degmada yaaqshiid. waxaan shiiqa weydiinayaa maxay dhibaysaa haddii aan moobil ay ku duuban yihiin qur'aan aan la galo masquul ama uu igu soo dhaco anigoo masqusha ku jira. aad buu u mahadsan yahay suleymaan. qadaa'ul xaaja aadaabteedu nabiga wuu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam. mowduuca wuxuu taabanayaa yacnii waxaynu sheegnay qofka aadaabta uu ilaalinayo waxaa ka mida baynu dhahnay inuu iska fogeeyo wax walba oo magac sharaf leh uu ku sugan yahay, sida magaca ilaahay subxaanahu wa tacaalaa, magaca ambiyada iyo magaca malaa'igta. rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu musqusha galayo wuxuu iska siibayey faraatigiisa oo waxaa ku qoray baa la yidhi nebiga magaciisa baa ku qoraa sala allahu calayhi wasalam. marka wax walba oo ay ku qoran yihiin magac muxtaram ah waa karaahiyo in musqusha lala galo. wallaahu aclam. waa tahay haddii aan raacsado su-aal aniga aan qabo, qofka haddii uu galo masquul waxyaabaha ka xaaraamta oo ka mamnuuca qofkaas maxay noqon kartaa? aad baa u mahadsan tahay. aadaab qadaa'i alxaaja waxay u qaybsamaysaa waxyaabo karaahiye ah oo yacni qofka inuu iska ilaaliyo loo baahan yahay, iyo waxyaabo muxaramaad ah oo qofka inuu sameeyo ay mamnuuc tahay. qofka markuu suulida ku jiro ama istinjo uu samaynayo, musqul ha ku jiro ama meel bannaana ha ku xaajo gudanayo, waxyaabo fara badan ayaa xaaraamka ah oo kutubta fiqiga aad ay u faahfaahiyeen. qofka waxaa mamnuuc ka ah inuu yacnii ku suuli guto shay madcuum ah oo raashin ah, maxaa yeelay waa shay muxtaram ah. inuu suulidii ku sameeyo lafaha meelaha iska yaalla, maxaa yeelay
lafuhu waxay quud u yihiin buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam jinka. lafaha waxa isticmaalo jinka ayaa isticmaalo. waxaa kaloo mamnuuca qofka inuu ku kaadiyo ama ku saxaroodo qabri. waxaa kaloo xaaraama inuu masjid ku kaadiyo ama ku saxaroodo walow fii inaa'in bay leeyihiin culimmadu. xitaa markuu masaajidka ku jiro weel haba u dhigto waa xaaraam. marka asbaabta uu madcuumka xaaraam u noqday waxay tahay shay raashin ah in yacnii lagu kaadiyo ama lagu saxaroodo waa itlaafu maalin, hanti oo meesha lagu baabi'iyey. laftuna waxaa la yidhaahdaa li'annahu tacaamul jinni, jinniga ayuu raashin u yahay. marka waxyaabaha ayaa xaaraam ka ah qofka yacnii inuu ku saxaroodo ama uu ku kaadiyo. wabilaahi towfiiq. waa tahay haddii istijada tusaale ahaan markii qofka uu ku gudi jiro musqusha ay dhacdo biyo la-aan, axaadiistu waxay sheegaan inuu qofka ku istijoon karo dhagax. maxaa u bedeli kara marka haddii qofka dhagax uusa ka agdhoweyn? aad baa umahadsan tahay. shayga lagu istinjo gudanayo sideedaba istinjaha 3 shay baa loo sameeyaa ama 3 hab baa loo istinjoodaa. qofka yacnii inuu ku istinjoonayo almaa faqad, biyo oo kaliya, iyo qofka inuu ku darab qaadanayo ama uu ku suuli gudanayo al axjaar faqad, dhagax oo kaliya, iyo labadooda wada jira inuu ku suuli gudanayo. marka waa 3 kayfiyo. waxaana fiican biyaha iyo dhagaxyada in la kulmiyo, yacni dhagaxyada iyo biyaha in la kulmiyo haddiiba la heli karo. marka qofkii markuu dhagax kaliya ku suuli gudanayo daabit guud baa jiro. daabitkaa waxaa la yidhaahdaa kullu jaamidin qaalicin muxtaramin, wax walba oo jaamid ah oo engegan oo daahir ah, wax baabi'in karoo fujin karo, qayru muxtaramna ah oo aan yacnii xurmo lahayn sida xaanshida iyo dhagixii oo kale iyo waxyaabahaasaa lagu istinjo guda karaa. wallaahu aclam. waa tahay su-aashaasi waxaan dareemayaa dad badan inay ka jaahil baxeen ama ay ka qanceen. ajar iyo xasanaad allah ka siiya sheekh Cantoob. haatanna waxaan u gudagelaynaa dhankaas iyo fariimaha. fariintan waxaa soo diray cabdiqaadir oo jooga degmada Yaaqshid. waxa uu leeyahay haddii aan masquul ku weysaysto maxay ka qabtaa shareecada? weysadeedii ma waxbay u dhimaysaa? sheekha iga jawaabu leh. aad buu u mahadsan yahay cabdiqaadir. yacni qofka markuu weesaysanayo sideedaba waxaa loo baahan yahay meel nijaaso ka fog. musqusha waxaa loogu talagalay suuli, yacni qofka musqusha inuu ku suuli guto, musqushina uusan ku weeso qaadan. marka xugum ahaan maxay naqanaysaa qofka markuu musqul ku weeso qaato? horta hadduusan najaasada iska ilaalin meeshaa waxaa ka cad weesadu inaysan ansaxayn. laakiin markuu nijaasadii iska ilaaliyo uu aad isu hubiyo musqushii uu ku weeso qaato, karaahi buu la kulmayaa. musqusha in lagu weeso qaato waa karaahiyo sida kutubta fiqiga ku sugan. maxaa yeelay qofka meesha uu ku weeso qaadanaya waa meel nijaaso, waa maxal shaytaan. marka waxaa loo baahan yahay inuu ka fogaado. weliba culimmadu waxay ku daraan qofka markuu badiyo inuu musqusha ku weeso qaato waxay dhaxal siinaysaa faqiirtinimo iyo saboolnimo. waa tahay haatanna waxaan fiirinaynaa dhankaas iyo qadka teleefonka. halo, qadka ugu horeeya. assalaamu calaykum. wacalaykum salaam waraxmatullah. magacaaga iyo halkaa joogta? waa sayno wadaagtaa soo wacaysa sheeka kulli shaqaalaha sheeka kulli waa u salaamaya. fawsiyo waa la socotaa mawduuca barnaamijka soo maha? waa la socdaa. inaad daahiro doonayo oo meyranayo bismillah karaataa doonayna weysi. waa tahay marka aan meyranayo ayay tiri fawsiyo bisinka alle ma ku bilaabi karaa anigoo suuliga ku jira? waa tahay sheekhan kuu gudbinaya. aad bay u mahadsan tahay fawsiyo. waxay gashay sida aan dareemayo aadaabul qusli, qofka markuu yacni qubays gudanayo waxyaabaha looga baahan yahay. qubayska marka tahaaraduu ka mid yahay insha allahu tacaala. markay qofka uu meyranayo ama uu qubaysanayo waxaa sunno ah markii arkaanta laga soo gudbo ama tiirarka qofka uu ilaalinayo markii laga soo gudbo waxyaabo badan oo ay ka mid tahay albasmalah. qofka markuu qubaysanayo inuu bisinka ku bilaabo markii madaxa uu biyaha ku shubayo, laakiin niyada buu ka leeyahay. maxaa yeelay qofka markuu musqusha galayo bismillaahi markuu dhahayo waa markii lugta uu ka hormarinayo, musqushana uu bannaanka ka joogo, markaa ayuu bismillaahi leeyahay. musqusha markuu galane waxaa mamnuuc ka ah inuu magac mucadam ah uu ku dhawaaqo. qofka markuu meyranaya marka si naftiisa asagoo maqashiinayo ayuu yacni bismillaahi ugu dhawaaqayaa. wayna mahadsan tahay. waa tahay saleebaan oo jooga degmada Wadajir ayaa asna fariintiisa waxa uu ku leeyahay sidee baan
u daboolanayaa madaxa markii aan suuliga gelayo? aad buu u mahadsan yahay Sulaymaan. waxaynu soo sheegnay rasuulka inay ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam markuu suulida galayo inuu kobaha gashan jiray, inuu madaxa daboolan jiray. yacni madaxa waa la hujinayaa, cimaamadoo kale la saarayaa ama koofi baa la saarayaa, madaxu inuu asturan yahay ayaa loo baahan yahay. waxayna ka mid tahay aadaabta yacni istinjaaha. wallahu aclam. halo, asalaamu calaykum. wacalaykum salaam. magacaaga iyo halkaa joogta? magacayga cabdullaahi axmed oo joogo degmada yaaqshi. waa tahay su-aasha mawduuca ku saabsan. shiikha waxaan su-aalayaa adoo qaawan ma la weyse qaadan karaa? waa tahay su-aashaasi sheekhaan u gudbinaya. aad buu u mahadsan yahay dhegaystaha. weyseqaadka shardi uma aha qofka yacni inuu asturan yahay. qofka asagoo qaawan oo meel keligiiya ku jira hadduu weyse qaato weysadiisu way ansaxaysaa, oo weysadu shardi uma aha qofku inuu daboolan yahay. wallahu aclam. waa tahay waxaa ka mid a dadka na soo weydiinayaa cabdiqaadir. waxa uu leeyahay waxaan doonayaa in uu shiiqa uu faahfaahiyo haddii suuliga anuu ku jira faniinka kaadida ama nijaasada maxaa ka ratibmaya ama oo ka dhalanaya? aad buu u mahadsan yahay dhegaystaha. yacni qofka markuu suulida ku jiro meeshu horta waa mawdicu nijaasa, waa mawdicu najaasa, yacni meel najaasada laysaga mayro. oo inta badan sida qaalibka ah musqushu waa iska najaaso. marka haddii uu faniin soo gaaro qofka, faniinkuna uu yahay faniin aragtidu ay haleelayso, meeshaa inuu mayro ayaa waajib ku noqonayso. laakiin faniinka haddii aragtidu aysan haleelayn waxaa lagu tiriyaa waxyaabaha macfiga ah oo yacni aan la xisaabin oo aan la isku haysan. wallahu aclam. waa tahay dhegeysto kale ayaa fariin noo soo diray. waxay tiri magacaygu waa xamdi axmed oo ku magac dheer xilkas oo joogta degmada yaaqshiid. waxaan shiiqa su-aalayaa haddii anoo masqusha ku jira uu telefoon iisoo dhaco ma ku hadli karaa? aad bay u mahadsan tahay gabadha. waxaan ka hadalnay aadaabta markii musqusha lagu jiro la istinjoonayo oo qofkii uu xaajo gudanayo, ama musqul ha ku jiro ama meel bannaan ha iska fadhiyo. kalaamku ama hadalka inuu yahay karaahiyo. qofka markuu xaajo gudanayo waxaa mamnuuc ka ah inuu hadlo, waana karaahiyo. wallahu aclam. waa tahay fariin kale ayaa na soo gaartay faadumo cabdi oo joogta towfiiq. waxay leedahay waxaan shiikha weydiinayaa haddii anigoo musqusha ku jira ay biyaha iga go-aan maxaan samayn karaa? aad bay u mahadsan tahay gabadhaas. markii hore waxaan soo sheegnay aadaabta istinjaha. waxyaabaha ugu horreeya oo aan tirinay waxaa ka mid ahaa qofka inuu diyaar garoobo, inuu diyaarsado dhagaxyadii ama xaanshiyihii ama biyihii wixii uu heli karo intuusan gudagelin suulida, inuu markii horeba diyaarsado. aadaabta ayay ka mid ahayd. haddii qofka marka yacnii uu musqushi galo oo biyihii ka go-aan oo biyihii ay nijaasada suuli waayaan, meeshaa waxaa ka cad in talwiithu najaasa ay meesha ka dhalanayso, in nijaasadii ay hallaynayso qofkii, waagan najaasadii ay baaqi ku tahay. loona baahan yahay haddii meelo kale ay sii gaartay iyo dharka in la mayro oo yacnii biyo la raadsado. wallahu aclam. waa tahay dhegeysto kale ayaa fariinna soo gaarsiiyey. waxa uu leeyahay magacaygu waa axmed dharyoole oo jooga degmada warta nabadda. su-aasha aan qabo waxay tahay haddii anigoo ku jira mashqusha ay iwacdo hooyaday ama waalidkay uu iwaco maxaan samayn karaa? aad buu u mahadsan yahay dhegaystahaas. waa su-aal loo baahan yahay. yacni qofka markuu suuli ku jiro ee waalidkii uu u yeero, qofka waxaa waajib ku ah waalidka inuu ajiibo. waalidkii markuu u yeero inuu la hadlo waa waajib. maxaa yeelay inuu suulida ku dhex hadlo waxay ahayd karaahi iyo aadaab la ilaalinaya kaliya, laakiin waalidka in la ajiibo waa waajib. marka waajibkaa la hormarinayaa. wallahu aclam. waa tahay dhankaas iyo fariimaha weli ku guda jirnaa. dhegeysto kaleeto oo lagu magacaabo nageeye waxa uu leeyahay shiikha waxaan doonayaa inaan weydiiyo imise dhagax ayaa istijaaha iga kaafin kara? aad buu u mahadsan yahay dhegaystaha. axaadiistaynii hore ayaynu ku qaadannay inuu nabiga yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa dahaba axadukum ila alqaa'id falyadhab macahu bihalaathati axjaar yastatiibu bihinna fa innahaa tujzi'u canhu. wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam axadkiin markuu aadayo meesha uu ku suuli gudanayo ama ku xaajo gudanayo horay ha u qaato 3 dhagax, way nadiifinayaan, iyagaana ka kaafin karo. marka culimmadu waxay ku sii daraan qofkii haddii 3dii dhagax ay kaafin weyso wuxuu ku darayaa dhagax afaraad. markuu 4 geeyo tiro isdheer buu ka dhigayaa, dhagax 5aad buu ku darayaa. wallaahu aclam.
waata aad baa umahadsan tahay su-aalaha ayaan sii gudagelaynaa. su-aashan waxaana soo weydiiyey cabdulaahi sheekh cali. waxaan joogaa ayuu yidhi xaafadda towfiiq. waxaan sheikha weydiinayaa anigoo kitaab wata haddii aan musqusha la galo weliba anigoo isku hilmaamay maxaan samaynayaa anigoo musqushii ku jira nijaasana iga timid kitaabkiina uu igu jiro. aad buu u mahadsan yahay dhegaystahaas. diintaynu waa diinu nasiixa, waa diinu sahla walyusr, waa diin aad u fudud ummaddana loogu nasiixeeyey. qofka markuu wax iloobo wixii uu iloobay looma haysto. rasuulka sala allahu calayhi wasalam ummaddayda waxaa laga rafciya buu yidhi waxyaabaha khadda aya gafka uga dhaco, waxay iloobaan iyo waxyaabaha lagu qasbo. marka diintayna inay diinu nasiixa, diin aad u fudud ay tahay, middaa ayaa noo caddaynayso. qofkii markuu musqusha galo qur-aankiina uu isku iloobo waxaa uun la rabaa inuu taxafudo, uu qur-aanka uu ka ilaaliyo najaasada. habkii najaasada uu isaga mayri lahayna uu la yimaado. wallaahu aclam. aad baa mahadsan tahay sheekh Antoob. haddii aan su-aalaheena usii gudubno, su-aalahaasi waxaa ka mid a haddii qofka uu istijoodo tusaale ahaan biyo ama dhagax waxyaabo la mida iyo xaanshida, sidee buu qofkaas uu isticmaali karaa xaanshidoo kaleeto ama waxyaabaha ka soo hara dhagaxa? aad baa u mahadsan tahay. waxaynu sheegnay daabit guud oo yacni shayga lagu istinjoonayo oo yacni najaasadii laysaga mayrayo aynu ka bixinnay. waxaynu dhahnay waxa lagu astanjoonayo oo yacnii lagu xaajo kudanayo oo najaasadii laysaga mayrayo waxaan ku tilmaannay ilaa dhowr shardi. kullu jaamidin qaalicin daahirin hayru muxtaramin, yacnii shay kasta oo jaamid ah oo qallalan, qofka markuu kaadiyo ama markuu saxaroodo xaanshiyada uu isaga tirayo waa inay qallalan tahay. yacnii shardiga shayga lagu istinjoonayo waa engegnaasho, xaanshida inay qallalan tahay, dhagaxina inuu qallalan yahay. shardiga labaadna shaygu inuu daahir yahay. shay najaaso ah haddii najaasadii aad isaga maydhi maagto waad sii nijaasaysay. shardiga saddexaadna waa inuu shay wax fujinaya uu yahay. tusaale shayga hadduusan wax fuji karin, maalan qooraaradda oo kale, qofka markuu dhalla soo qaato ama qarsho ee uu doono inuu kaadidii isaga suuliyo way ku sii hallaynaysaa. waxaa loo baahan yahay shay wax fujin karoo tirtiri kara. waxaa kaloo shuruudda ka mid ah hayri muxtaramin, shayga yacnii lagu istinjoonayo inuusan xurmo lahayn. qofka hadduu soo qaato shay xurmo leh sida muufo qallalan, muufo meel lagu xooray oo qallalan haddii uu soo qaato ee uu ku istinjoodo waa xaaraam, maxaa yeelay shaygaa waa muxtaram. wallaahu aclam. waa tahay aad baad mahadsan tahay sheekh Salaad Cantoob Xasan oo nagala qayb galaya barnaamijka islaamka iyo nolosha. aad baan kugu mahad celinaynaa. gunti iyo gabagabadii ayaanu soo gaarnay barnaamijkeena islaamka iyo nolosha. waxaa idiin soo saaray anigoo ah Maxamed Axmed Xalane. waxaa marti inoogu ahaa mar labaad sheekh Cantoob Salaad Xasan. waa bahdii barnaamijka islaamka iyo nolosha idin leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.